الرحمن الرحيم dhageystayaal kusoo dhawaada dhageysigan waxaan ku bilaabi doonaa casharkeeni koobaad ee ah sidii aan luqadda Soomaaliga u baran lahayn annagoo barbar wadna luqadii Faransiiska saan iskugu xiri lahayn aan mid walba ereyadiisa aan iskugu keeni lahayn marka waxaan ku bilaabaynaa ereyadan soo socda oo ah suurtagal miis marka waxay ka dhigan tahay suurtagal Faransi ahaan possible haddii aad maqashid waxay ku dhawaaqmaysaa Soomaali ahaan suurtagal miis af Soomaali waxa weeyaan waa table marka af Soomaali laga tagayo Faransi la tagayo waa maxay waa table haddii aad maqashid table waa miis si vous entendez miis ça veut dire table et si vous entendez suurtagal ça signifie possible marka waxay ka dhigan tahay possible haddaad maqashid suurtagal haddii aad maqashid table waxay ka dhigan tahay miis markaan ku sii soconno laga cabsado donc laga cabsado waxa weeyaan terrible donc si vous entendez laga cabsado ça signifie terrible haddii aad maqashid terrible waxay ka dhigan tahay laga cabsado marka ereyga labaad waa sidaa Faransiigiisa waxa weeyaan terrible le mot somali c'est laga cabsado voilà donc waxaan u tabaynaa inta ku xigta on va passer à la suite allons-y la yeeli karo la og donc waxay ka dhigan tahay la yeeli karo waa acceptable si vous entendez la yeeli karo ça signifie acceptable haddii aad maqashid acceptable waxay ka dhigan tahay la yeeli karayo amba la yeeli karo la ogolan karo la ogolaan karo marka waxay ka dhigan tahay acceptable waa isku midkii un c'est la même chose si vous entendez la ogolaan karo ça signifie acceptable haddii aad maqashid acceptable waxa weeyaan la ogolaan karayo weeyaan aan sii tabno ereyga ku xiga on va poursuivre notre astuce dugsi leh donc ça signifie confortable waxay ka dhigan tahay dugsi leh haddii aad maqashid dugsi leh waxa weeyaan confortable donc si vous entendez dugsi leh ça signifie confortable donc on va passer à la suivante waa oo ka dhigan c'est waxay ka dhigan tahay c'est-à-dire si vous entendez ça signifie c'est haddii aad maqashid c'est waxa weeyaan waa af Soomaali ahaan voilà donc waxaan u tallaabaynaa ereygii ku xiga oo tusaalihiisaan arki doonaa on va passer au mot suivant et qui va nous donner un exemple sur cette prononciation voilà donc continuons waa suurtagal c'est-à-dire c'est possible voilà donc ça signifie c'est suurtagal ça signifie possible donc c'est possible se prononce en somali suurtagal haddii aad maqashid c'est possible waxay ka dhigan tahay suurtagal voilà waa saas weeyaan donc ereyga ugu dambeeyaan u tabaynaa haddaba maaha oo ka dhigan non
Ou bien pas. Je me suis un peu trompé là. Ça signifie pas. Maaha, ça signifie pas. Hadiad magashid pas, waxay ka dhigan tahay maaha. Si vous entendez maaha, ça signifie pas. Donc on va continuer. Haddaba waan ku sii soconaynaa. Possible. Waxay ka dhigan tahay possible waa suurtagal. Donc suurtagal, ça signifie possible. Possible. Waxay ka dhigan tahay suurtagal. Si vous entendez suurtagal, ça signifie possible. waka. Voilà. Donc on va passer au suivant qui est table. oo ka dhigan miis. Table. Donc haddii aad maqashid dhawaqa oo ah table, waxay ka dhigan tahay miis. Si vous entendez miis, ça signifie table. voilà. Terrible. Donc ça signifie terrible en Somalie. Laga cabsado. Laga cabsado et sa signification est terrible. voilà. Donc haddii aad maqashid terrible waa français ahaan waxay ka dhigan tahay laga cabsado. Voilà. Donc waxaan u tabaynaa ereyga ku xiga. Acceptable. Voilà. Donc acceptable maxay ka dhigan tahay haddaba? Waxay ka dhigan tahay la yeeli karo. Eega hadda la soco. Haddii aad maqashid dhawaqaasi, acceptable. waxay ka dhigan tahay la yeeli karo. Amba haddii aad maqashid dhawaqa, waxay ka dhigan tahay la ogolaan karayo. Donc si vous entendez la yeeli karo, ça signifie acceptable. Si vous entendez aussi la ogolaan karayo, ça signifie acceptable. voilà. Donc on va passer au suivant. Waxaan u talaabaynaa ereyga xiga. Waa maxay ereyga xiga? Confortable. Voilà. Donc ça signifie quoi? Confortable en Somalie c'est dugsile. Maxay ka dhigan tahay ereygan? Confortable. Waxay ka dhigan tahay dugsile. Haddii aad maqashid erey saa u dhawaqmaya, waxa weeyaan dugsile. Hay bal ereygan eega. C'est. Donc seedaasi waxay ka dhigan tahay waa waanakii soo marnay bilowgii. Haddii aad maqashid dhawaqaasi, c'est. waxa weeyaan wa. Donc si vous entendez wa, ça signifie c'est. voilà. Donc j'espère que c'est clair. Waxaan u maleeyaa way caddahay. Haddii aad maqashid c'est. waxa weeyaan wa. Donc waxaan u talaab ereyga kale aan u talaabaynaa oo ah c'est possible. donc maxay ka dhigan tahay haddaba maxay ka dhigan tahay c'est possible. C'est possible waxa weeyaan waa suurtagal. Arkaysaa? Donc haddii aad maqashid ereygaasi, c'est possible. waxa weeyaan waa suurtagal. Donc si vous entendez cette expression waa suurtagal, ça signifie simplement c'est possible. voilà. J'espère que c'est clair, hein? Donc ereyga ugu dambeeya aan talaabaynaa oo noo dhammaystiraya dhegeysigeenan wuxuu noqon doonaa Ce n'est pas. donc waxay ka dhigan tahay ce n'est pas, waxay ka dhigan tahay ma aha. Donc avant j'ai pas un peu clarifié l'expression ma aha. Ça signifie ma c'est ne pas, mais aha ça signifie est. Donc lorsqu'on s'additionne, ça devient ma aha. Ma aha, ça signifie en français ne pas. Mais waxay ka dhigan tahay ereygan waan isdul taagay hadeerta waan yar dul maraheed. Ne pas waxa weeyaan ne iyo paada ugu dambeysa waxay u taalaa Soomaali ahaan ma. Laakiin ahada waxa weeyaan e. Marka haddii aan isku darno waxay noqonaysaa ma aha af Soomaali ma. Donc français haddaba français wuxuu noqonayaa ne
pas saad maqli doontiin ce n'est pas plutôt wuxuu noqon doonaa ce n'est pas donc ina fahanteen baa malaya Ce n'est pas. voilà donc ce n'est pas hada maqashid ma aha weyn af Soomaali ahaan donc voilà waad mahadsantihiin inoo dhegeysyada dambe hadduu ilaahay idhaaho merci et à la prochaine.